halkan ku soo gudbinaya qodobada soo socda oo lagu soo biiriyay sharciga. qodob numberkiisa uu noqday 22 markii taxanaha qodobada la eego kaasoo noqonaya guddiga qaranka ee manaahijta waxbarashada oo aan ognahay ahamiyadda uu ugu fadhiyo dalkan oo ay soo galeen manaahij kala duwan sanooyinkii burburka uu jiray loona baahan yahay in guddi qaran oo ka turjumaya danaha bulshada dhan kasta ah waa guddi qaran ee manaahijta waxbarashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kana mas'uul ah alifaada manhajka qorista manhajka iyo daawacaadiisa xubnaha uu ka koobmayo guddigan qaab dhismeedkiisa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa muddaxilaadkiisa shuruudaha lagu soo xulahayo xubnaha dabcan iyo meelaha ay ka imaanayaan waxaa heer nidaamiye ku soo saaraya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. qodobka labaad wuxuu ka noqonayaa taxanaha qodobada sharcigan 54 waana golaha imtixaanaadka waxbarashada waa tii aan la soconay sanadka hadda la soo dhaafay sanooyinka kale imtixaanaadka inay dhawaato ka taagnayd marka in guddi qaran heer federaal ah loo dhiso imtixaanaadka ayay taladiini ahayd ama xubnaha qaarkood ay soo jeediyeen marka golaha imtixaanaadka waa gole qaran oo maamula imtixaanaadka shahaadiga ah fasalka 8aad iyo fasalka 12aad dejintiisii sixidiisa iyo shaacintiisaba guddigaas ayaa yeelanaya xubnaha uu ka koobmahayo shuruudaha lagu soo xulahayo meelaha ay ka imaanayaan iyo kaalinta ay ku yeelanayaan dowlad goboleedyada waxaa xeer nidaamyo ku soo saaraya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare marka nuxurka akhrinta saddexaad waxay kaga duwan tahay akhrintii labaad labadan qodob oo muhiim ah aadna loo eegay maxaan ku raahdaa in aan dood dambe ka imaanin imtixaan iyo qaadistiisii iyo dejintiisii waana maxaan ku raahdaa imtixaanka qaranka markii laga hadlayo waa heer federaal weeye gaar ahaan markii dugsiga uu joogto dugsiga 12aad fasalka 12aad kan 8aad laftigiisu haba qaadaan dowlad goboleedyadu laakiin waxa weeye way isla habeynayaan maxaa yeelay tacliintu maaha wax maxaan ku idhaahdaa kala qaybsami kara maaha ummadda waa maxaan ku dal quraha baynu nahay marka dowlad goboleedyaduna aad baa loogu tixgelinayaa arrintaas marka waxaan codsanaynaa guddi ahaan maadaama sharcigan muddo 3 sannadood iyo ka badanba uu golaha la yaalay maadaama ahamiyad weyn u leeyahay nolosha bulshada waxaan codsanaynaa golaha sharafta leh inay ansixiyaan xeerkan si maxaan ku idhaahdaa hay-adaha fulintana ay u meel mariyaan adinkoo mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullah BC
shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. abka BayC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BayC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BayC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BayC